Wararka naga soo gaaraya magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Itoobiya ayaa sheegaya in wadahadal u bilowday ururada u dhaqdhaqaaqa xoreynta shacbiga Oromada, kuwaasoo muddo dagaal kula jiray taliskii hore ee gumaysiga Itoobiya. Sida aan xogtan ku helayno, waxaa magaalada Addis Ababa ku wada hadlay Jabhadda Xoreynta Oromiya ee OLF iyo ururka u dagaalama xoreynta dhulka Oromiya ee lagu magacaabo isagana OFC. Waxaana la sheegayaa in labadan urur doonayaan inay mideeyaan muruqooda, maskaxdooda iyo maalkoodaba. Gudoomiyaha Jabhadda OLF Daud Ibsa iyo gudoomiyaha Jabhadda OFC Dr. Marera Gudina oo kulamo xidhiidh ah ay u socdeen baryihii lasoo dhaafay ayaa la sheegayaa inay wadahadalkooda horumar ka gaadheen, iyagoo sida la sheegaya isla gaadhay sidii shacbiga Oromiya loogu diyaarin lahaa xorriyad gaadhsiintooda iyo midnimadooda. Labadan jabhadood ee Oromada ah ayaa muddo dheer u soo dagaalamayay xoreynta dhulka Oromada iyo mideynta shacbiga Oromada, waxayna labadan jabhadoodba heshiis la galeen maamulka cusub ee xukuumadda Itoobiya, kaas oo wax badan oo danaha shacbiga ah ay ka wada hadleen. Labadan jabhadood ayaa haddii ay heshiiyaan lagu wadaa inay wax badan ka bedeli doonaan shacbiga Oromada oo intooda badan xornimo doon ah, waxaana la rumaysan yahay in jabhaduhu hogaaminayaan inta badan shacbiga Oromada oo iyagu ah qowmiyadda ugu badan qowmiyadaha dalka Itoobiya. Tallaabadani ayaa hagardaamo weyn ku noqon doonta hogaamiyaha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed, kaasi oo haddii ay Oromada khilaaf soo kala dhex galo ay noqon doonto waxa uu ku faanayay ee ah xuduudda Oromadu inay qaybsanto, kadibna uu meel cidla ah ku soo dhaco, iyadoo Amxaarada iyo Tigreegii awoodda laga qaaday ay kaabiga u fadhiyaan sugayaan in yar oo ay Oromadu kala leexato.